kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan odayaal dhaqameedka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay kaga hadlayeen fikradaha cuduryoon ee Soomaali weyn iyo marin habaabinta ahaanshiyaha wadan ee Dambiile Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ah kooxdii gabalkeedu dhacay ee Ubbo ee dhibaatooyinka dilka kufsiga dhaca burburinta iyo bahdilka ku hayay shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Itoobiya kulankan isugu yimid ay sheegeen in fikradaha cuduryoon ee maangaabnimada ee Soomaali weyn ku iyo marin habaabinta ahaanshiyaha wadan ee Dambiile Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ay tahay mid lala yaabo oo ku salaysan fikradaha guracan ee calooshoodu shaqaystayaasha diidan wada noolaanshiyaha ummadda wadamada bariga Afrika. Furitaankii shirkanna waxaa ka hadlay shirgudoonka. waxaynu ka hadlaynaa hadda dalka walaalaheena inoo dhow ee xuduud aan leenahay Soomaaliya arrimaha ka socda ee xagga propagandada ummadan dalkan Itoobiya anagoo dal Itoobiya haddana ku haysana xuquuqdeena iyo dawladnimadeena iyo wax allaala wixii dawlad ay lahayd ku haysana hadda waxaad ogsoontiin dawladdii Soomaaliya ay tirtay wixii ka dambeeyay dhibaatooyinka ka dhacaya hadda waxaad ogsoontiin inay bilaabeen iyagu dacaado dawladda Itoobiya ku saabsan ama inaga dalkeena ku saabsan ay waxba ka jirin inaynu ka hadalnaa ayaynu hadda u fadhinaa. Dhankooda odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Itoobiya kulankani ka qayb galay ayaa sheegay in kuwa aaminsan fikradaha Soomaali weyn nabaddiidnimo iyo dhigka ganacsiga bulshada aan waxba galabsan inay yihiin kuwa aan hor u socod lahayn la soo dhaafayna xilliga ay adeegsan jireen shaatiyada kala duwan ay ku dhibaateynayeen shacab aan waxba galabsan iyo deganaanshiyaha wadamada dariska ah. waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinta ku saabsan dadkan Soomaaliyeed ee Soomaaliya ay ka hadlayaan ee ku saabsan Cabdikariin Qalbi Dhagax ninka loo yaqaano. Qalbi Dhagax waa nin deegaankan u dhashay ahna qof booliska ugu horeeyay halkan ka ahaa oo ka caasiyoobay way. haddii uu ka caasiyoobayna waxa uu baabiyay ee laayay ee dhameeyay ee dhibaatada u geystay waa shacabkiisa. wax Soomaaliya ka quseeyana ma jirto asaga asalkiisina xaggan uga soo jeeday waxa uu dilay ee laayay ee dhibaatada u geystana waa shacabkiisa way gaar ahaan marka la sii fiiriyo waliba qoyskii uu ka dhashay iyo deegaankii uu ka dhashay iyo wardheer dadkii deganaa buu laayay cid kale ma laynin Soomaaliyana waxba kama quseeyaan. fikirka kale waxa way anagu Soomaali weyn ma niin Soomaaliya dad walaalo darisaan nahay laba dawladood daris anagoo Itoobiya la yiraahdaa Itoobiya nahay dadka Soomaaliyada walaalaha anaga waxaan leenahay haddaad wax taraysaan dhibaato inta ku fil adinkay la joogaan al-shabaab iska celiya oo dalkiina ka buuxdaa dalkiina soddon dawladood baa mushaar ku qaadataa isagoo dadkiina gaajoonayo haddaad wax taraysaan dalkiina wax u tara oo adinku dalkiina coraysta oo al-shabaabta iyo cadawga kale iska kiciya oo ayadoo ciyaalkiina iyo dadkiina iyo maatadiina ay gaajaysan tahay soddon dawladood yaa mushaar ku qaata askartiina mushaar ma qaadato. marka qofka asagii waxa la yiraahdaa qofka waxa weeye asaga tiisi uu meel saari waaye inuu mid kale ka hadlo waa khalad weeye. anagu waan ixtiraamaynaa waana tixgelinaynaa dadka Soomaaliyeed inay xorriyadoodii iyo walaalnimadoodii iyo wanaagooda helaan waan jecelahay ma nicibin laakiin anagu Itoobiya nahay Soomaaliya ma niin. qodobka kale ee doonaya waxa weeye inaan ka hadlo waxa weeye dadka Kenya ku nool ee Soomaaliyeed waxaysan haysanin annaga haysana dalka iyaga waxa weeye xorriyadiisii iyo madax banaanadiisii iyo horumarkiisii cid haysata ma jirto annaga haysana. ninka la yiraahdo Sakariye ee baarlamaanka ku jira ee mar walba ka hadla qadiyada Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ka dhaxbixila inuu shabaab yahay waa la ogyahay shalaytana al-tariyu joog jiray waa la yaqaanaa waa Sakariye waa shabaab asaga laftiisa markuu qofku saxan yahay inuu qadiyad kala ka hadli karaa inuu qadiyada Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo Qalbi Dhagax oo u dhashay deegaankan wuxuu doona ha ahaado inuu ka dhaxbixi waayo taa waa shabaabnimo noogu soo dhuuman maayo. waan ognahay inuu shabaab yahay ama baarlamaan ha ahaado ama hawa tabaqanaaya sadana dawladeed ha sheegto Sakariye hadduu wax tarayo reerkiisa iyo deegaankiisa al-shabaab ta ka xoreeyo waana shabaab hadduu dayn waayo
Ethiopia qadiyadeedana edab daran yahay waxaan waayadan mass media ka arkaynay dad Soomaaliyeed oo fara badan oo dacaayad propaganda u jeedinaya Ethiopia ama arinta ninka la yiraahdo ubayga ahaa ee Cabdikariin ha ahaato ama ma garanaysaa cadaawad aan Ethiopia nagu jirin dad sheeganaya ha ahaato muddo fara badan baan TV-yada ka daawanaynay aan dhageysanaynay aan arkaynay waxaan leenahay shacabka Soomaaliya waa shacab aan walaalanahay cid kasta oo Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa Ethiopia aad sheegaysaan inay anaga tahay Ethiopia aad hadal haysaan waa anaga Ethiopia aad sheegaysaan waa anaga Ethiopia nimadeedana cid aan uga daba fadhino ma jirto dad fara badan baa waxay ka hadlayeen Cabdikariin qalbi dhagax oo ka tirsanaan jiray booliska deegaanka Soomaalida oo shacab badan oo u dhashay deegaanka Soomaalida dib u geystay dil u geystay kuwii naga falaagoobay ay laayeen oo aan soo qabsanayno oo meel kasta ugu galayno de idinka inaad dadkayga la dhibaateynayay ka damqataan baa laakiin maanta waxa noo soo baxaysa kuwii hoosta ku hayay ee dibka noo geysanayay ee dadkayga leynayay ina idinka tiim noo soo baxaysa tan kale waxaan idin leeyahay dagaalkii 77 qalad buu dhacay mid khalad u dhacay buu ahaa laakiin kuwa doonaya siyaasadda iyaga ka dhaxaysa ee maamulka Soomaaliya iyo shakhsiyaad ka dhaxaysa kuwa doonaya inay u maraan Cabdikariin iyo dacaayadda Ethiopia ay u maraan dad soo jeedo idinka horeeyaan nahay aniga waxaan ahay Sultaan Cabdiraxmaan Duulane Rafle ayaan ahay Cabdikariin anigu suldaankiisii baan ahay dhibaatada Cabdikariin waxaan anigu hadda soo koobi karo dad badan buu laayay gobol kasta oo galay fiiq qabri dahare dhagax buur meel walba meel uu Cabdikariin dad ku leeyeen ma jirto iyo dowladda u dhashay oo ugu daraa meesha uu baabiyana dowlad ahayd heerkoodii baa ahayd wuxuu baabiyay heerkoodii isaga heerkoodii qoyskoodii uu baabiyay kuwa maanta u qeeliyo aad iyo aad bay taladu idinka khaldan tahay xumaan inaad u jeedaana waanu ognahay midda kale Soomaaliya anagu dad walaalahana xumaantooda ma rabno dadka caynkaas oo kale ah inay noo soo dhibaan xaq baan ugu leeyahay kuwa anaga xumaanta nala raba waxay naga rabaan ay doonayaan waa maxay Soomaaliya inta ka hadlayaan Cabdikariin dantooda ha ka hadleen wadankooda ha ka hadleen al-shabaab ha ka hadleen wixiina soo farageliya Ethiopia soo farageliyana annagoo sumido ma iska celin qayladu waxay sheegaysaa oo ay leeyihiin Cabdikariin baa la qabto cadow loo geeyay Cabdikariin waa kuma horta Cabdikariin waa kuma Cabdikariin tababarkii u horeeyay ee booliiska ee halkan loo qabto ee Soomaaliya oo tababar u baxda koobu ka ahaa dabadeed uu goostay kolkuu xilkii ka soo bixi waayay kadib waxa uu leynayay uu garaacayay dad Soomaaliya oo deegaankan u dhashay waxa uu si naxariis darro u leynayay jifadiisii hoose Cabdikariin wadankiisii baa gacanta ku haya Ethiopia ku haysa in la saamaxo iyo in la xukumo ummadda Ethiopia u taala uma taalo xamar iyo meel kale oo idaacada laga hadlo waa waxaan khuseyn waxay ka hadlayaan baroortu orgeyga ka weyn arrintan horta Soomaali weyn maxaa ka dambeeyay ma wax inaga naloogu danayn hayay ahayd mase qorshe waxay ahayd geeska Afrika oo dhan in lagu burburiyo la doonayay inay qorshe geeska Afrika oo dhan lagu burburiyo ahayd ayaa dhab si aad noogu heshaan economic dadka nagiina refugees baad ka dhigteen oo la jeedadu taasay ahayd waxaa tibad arrinta la xidhiidha Soomaali weyn iyo arrintan Soomaalida ka hadlaysa Cabdikariin balaan isweydiinna Cabdikariin iyo Soomaaliya maxaa kala galay Cabdikariin ninka la yiraahdo nin Ethiopiana oo wardheer ku dhashay andaya zuurkii booliskii dirdhaba lagu tababaray waa taliye boolis buu noqday dadkii fikirka khaldan qaatay ee jaatarka ka baxay ee shuftoobay ee duurka u baxay buu isla markaana hagardaamo badan buu deegaankiisa iyo dadkiisa iyo bulshadiisa u soo geelisay cid waxyeelay Sheekh Muuse uu ka dhashay asagoo Sheekh Muuse ilmo Sheekh Muuse laayay
reer qabdahar buu laayay reer dhagax buur buu laayay reer nogbeed buu laayay ninkaas dembiiluu ahaa dalku dembiilaha ka ahaa uu ka dhashay uu ka soo jeeday uu ka macaaladoobay baana gacanta ku hay dalkanina waa dal dowlada sharci baa la marinayaa arrinta la xidhiidha dagaal 77kiibuu ka soo qayb galay taas iyadu maba badno oo waxay caddaynaysaa dagaalkii 77kii inuu fikir soomaali weyn ahaa oo Soomaaliya waday oo dawlad shuuciyadii waday dalkanaga iyo deegaankanaga lagu burburinayay iyo dawladnimadana lagu burburinayay baa caddaynaysaa markaan waxaan leeyahay nimanka Soomaaliyeed ee arrinta ka hadlaya boonbooninaya dad deegaanka Soomaalida iyo dawladda Itoobiya midna u daneynaya ma aha danaha Soomaali kala leedahay ay 20 sano dalkooda ku soo burburinayeen ay kuraasta ku raadsanayaan ay dhiiga carruurta shacabka Soomaaliyeed ku ganacsanayaan oo ha ka hadlaan annaga faraha nagala bacaan dawladda Soomaaliya waan ixtiraamayna shacabka Soomaaliyeed dariska nahayna waan ixtiraamayna